kulanti wacan salaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wareysi gaara oo aan la yeelayno abwaan cabdishakuur cali axmed oo marka aad maqashaan magacaasi naanees khatara idin niman tahay hal abuur jeego wuxuu marti igu yahay telefishinka Somali Cable Studio-ha magaalada Muqdisho waxaynu ka hadli doonaa dhanka fanka gabayadiisa haday noqon lahayn kuwii jaceelka ahaa haday noqon lahayn kuwii kale tilmaamaha dhalinta maanta iyo waliba qaabjilinka jaceelka dhalinta maanta marka hore kusoo dhawo telefishinka Somali Cable waa dhawahay Cabdisiis salaam iyo maamulka Soomaaliyeed gaar ahaan bahda saxaafadda Somali Cable iyo inta magacayga muuqaal ka taqaanata waa salaamaya gaar ahaan dhalinyarada waqti iyo madaalo oo aan kamid ahay waan dhawahay walaalkani su'aasha waraysan ku weydiinaa waxa waaye abwaan halkee ku dhalatay waxaan ku dhashay gobolka Sool haye soo barbaaray waxbarashada inta badan soo qaatay halka waxaan in 2016 fanka ma hidaad u leedahay ma hubigaaga ma jeceshahay suugaantu siyada ku timaadana waa hibo waa hidaha marna wax la qofkaas waa cilgabi barka ayay jirto sax hay aniga marka waa hidaha oo ay u hayba tuuran jiray fariinay wax isku jiray rasaasan soo galay suugaanta iyo marxalada taagan diina qasbeena ana ka hadasho inta gabayada aan u galin oo badda ah badan waxaan jeclaan lahaa markii aad Sool ka timid Muqdisho Muqdisho waxa leedahay waa magaalo weyn maxaa kugu yaabadnaa waxaa kugu yaabadnaa dhacdo aan habeenkii aan nimi maanta aan habeenkii u dhacay sax waxaa jirta taalayda Siin Abdul Xasan Wasaaraha Fariskiisa xeen finin sax taala aka baarlamaanka kurtiisa sax waxaan Muqdisho imi shan laataki June waxaan u imi inaan xorriyadii Soomaaliya ee laga sheekeeyo laataki June ka qayb galaan oo Muqdisho habeenkii waan soo galay waan seexday haddii aan suugaan ku soo maray intii aan socodkayga iyo maatkayga wuxuu yiri sanaag baa ka iman Sool baa soo maray safar dheer baa soo galay oo calaadaas saacada joogay xamar baa soo galay saqa dhexo ana saan qaabka u iman aan ka hadlaya sax calaadaas saacada joogay xamar baa soo galay saqa dhexo suuxii baan toosoo suuqa yara gaaray 8 saac baan ka yimid waa saacadii carabka gaari socdanta way isku soo lugayay isku soo lugayay sax saacadii casarka isbahaysan ku tagtay sida moo dhaqaaqayo gooraan sii maray taladii seedkii xiin faniin saaraan jiray baan sida uu jaleecay sanad ba hoosta Allah si ku waaweyn yahayo saraakiil aan South Africa baan u maleeyo inta aan yar salogay sarwaan u shideen waska wada moogta sax sarwaantii aan qaatay sax sagaal baan ka jaray sax nimankii baa u la galay meesha taagnaa ciidankii nabadgelyada ami South Africa baan u maleeyo sagaal baan ka jaray socdo baan oo South Africa maxay ka hadlayeen waxaan maqli jiray Soomaalida gubaan oo Soomaali baa la gubay laba wiil bay gubeen isnool la gubayaan maqlay moogta على سقف halkaas aan cali qabay markaas صح waana weyn baa ku weyn waa la sheegay laakiin qof kale ma lahayn tilmaami un baad haysatay qaabkooda jirka marka nimankii arkeen sida waa ku weyn South Africa صح socdo baa sare baa yara iga weyn sare ma nusqaan calanka baa saraay si dhaqso ma ku calankana markii ugu horeysay aan soo istaago kaligiisa waa meel tagay walaa ku sii markii ugu horeysay ilaa ku joogo sidii kala ku joogo سريع مرسخ على كبار سراي سيد أحسن مقولة سلام شرف صار سعادة نصف لي استحيل ما تعوش وحكى بهذا المكان مع صلاة صفرين يسود بعالم كوا هاي مع سلية سلوك ها دي بقول لك أنا ما صعلنك وحاجرتي مركي مجالدا أعتمد جوايو سوشيال ميديا أد وجد مي أو كمدها جوي جعلك dhalinta haasawaha maanta iyo dhalinta bariga hore qaabka loo haasawo aad leedahay biyaanka dhaxarka iyo shakada qaabka filmaanta hindiga loo sameeyo kale bal gabaygaas waxa naga maqashay gabayga waxa dhalanteed ha markaan de magaalada manuu iskrimii baan iska moogtay waxa arkay dadkii baan aqaanayn dhalinyarada iyo jacaylkii iyo xiriirkii iyo wax soo jiro waxaan moogtay dhaqan buu aan leenahay nagu sax wixii baa la bedelay marka sax waxa ka saawiilay gabar sheekaysanaya abayo waxaan intada aan bariiska cunay ka dhaxkaya sax aan koobka biyo hor yala ka dhaxka koobka soo firiida qof ku dhac jira koobkii moogtay sax waxaan maxaa ku keentay marka gabayga ka curiyo meesha dhalanteed gabayga waxa ka hadlaya dhaqanka afka iyo dhaqankeena iyo xiriirkeena waxa
xambaarsan yahay wuxuu yidhi marka gabaygaasi niman yahow iyo dharaaraha matini gabayga dheeraay maantana waxba ay u dhashay kama dhawaajeen bal dhegaysta caawa dhexgeli oo dhigdhigayaay sidii neef dhulkaan qaba waxaa sidatan ii dhuubay dhafarooda waxay la gotay dhuunina u diiday dhaqanka iyo afka inay dhinto dhalinta diideen dhajis bay ka doorteen go ay dhada ka cadda dhajiska waxay maanta xidhan marka la isku dhajinaya jirka u dhagan aad weyn dhajis bay ka doorteen go ay dhada ka cadda dhinac bay ka xiraan timaha mana dhameeyaan qof tibi intuu dhinac soo xiro oo kule waxaan brotel iyo dhaanto dhinac bay ka xiraan timaha mana dhameeyaan dhaaruqoo kale dhamaan waa dhutinayaan dhexda iyo waxay wada xidheen dhuunta shaatiga dhaqanu nin kale leeyahay dhab ugu faanaanay daandaan sidiisa dhaqan ka dhacaya qof soconayo meerka suwaaki kasoo qabanaya mar balaha kasoo qabanaya oo kor u qaadaya waana caafimaad qabaa waa nool yahay waa qof labisan oo dharkii kasi dhacayo haye wuxuu dhaqankaba dhanka dumarka baa looga soo dhacaya dhaqankaba dhanka dumarka baa looga soo dhacaya macnaheeda aan ku dhigdhigo dhaan marrayaani sax dhilihii dhigaalkii lahaa hore dhaqankii sax dhawstadiina may tolon iyo kibadii dhereedi sax qaar baan dhagaati ka aqoon dhoolka lagu dhaado sax qaar baan dhagaati ka aqoon dhoolka lagu dhaado dhigtii iyo dhamaysanay haraar dhaxmaan arag sax waxyaaba dhaqanka oo miyiga aan ku aqaanay sax magaalada kuma arag wax hadaya ma arag sax dhigtii iyo dhamaysanay haraar dhaxmaan arag sax ninka yirisi dhuubaan barto dhuuni cuni maayo dhabankeeda goortaan arkiyo habu dhaqaaqeeda isaga iyo kuwaa dhigay hindiga waxisma dhama dhuuban arkay oo dhuuni cuni maayo nin baa yidhahaa gabadh meel mara soo dhalibu kule waan soo arkay dhuuba waa misaal magacadkooda markaas waa gabadh magaceeda haa sax uu soo arkay xilli waan jeclahay briiski baan cuni waay bistiga hadda magaalada dhuuba lagama yiraahdo waxaa laga isneelo iyo qalanjaa laga yiraahdo magacyo kala baxsan aad iyo aad ninka yiris dhuubaan barto dhuuni cuni maayo dhabankeeda goortaan arkiyo habu dhaqaaqeeda isaga iyo kuwaa dhigay hindiga waxisma dhamaane labaduba dhalila hurday dhab u maleeyeen dhakafaaka qaarkii ma badhaan deewdaay dhadadii dabashan mara dhinacu moodaaye dhalanteedka qaarkii mar baa qaan u rataaye dadka way ka dhow yahay ninkan dhaqan wadaagnaanay dadka way ka dhow yahay ninkan dhaqan wadaagnaaya afartaa intaan dhidab tole caynkii mau dhuuji ma dhadhaaray layskama dhihi dheeli mau diiday afar kalena waa dibdhucii dhiga adeegiina sax wax dhaxaan riwaayada soo nab ugu qayshay dhuuryadan dare dhuuryada waa maxaa la dhaho geelo cunaa xoolaha cun sax dhuuryadan dare si lahaa shirinta dhuuqaysa dhiidhinti baan mari lahaa nacabka soo dhuntay sax dhaga adag ma dhaadaan murto dhagama siisaane ujeedada dhigayoodan dhab uga faalloodo dhalinyarada soomaaliyeed ruuxa hadalkayga ku dhirada afkayni dhinto dhab ugu haasaawa dhalinyarta xitaa markooda hadlayaan waxay kasaqleen gabar meel masaxto hi baby wala de hi anu halla ma ihi ilma carruurna baby de ma ihi af soomaaliga usoo lanahay badleeda mogta ku dhirada afkayni dhinto dhab ugu haasaawa ka dhabeeya dhoodaan sidii dhab ugu hiisha ku dhaqaaqa dhambaalada ku qora dhimay warkeeni hadda waxaa la isticmaala marka waxa social media waan intaada kan ka bixin waxay kusoo qorayaan adigu inta gabadh jeclaata ma ku riyootay iyo aniga jacaylkaas weli ma soo marin la sheegahay de waxa aad leedahay biyahan kaa dhex arkay waxaa u diidan tahay adigu ku dhimay ma dhihi karnaa oo weli jacaylka noocaas soo maray oo hadda dee umad way joogaa reer waan leeyahay laakiin jacaylka noocan oo galaas kale iska arkay kaasi way dhiman yahay inuu soo marana waa ka cilbilaysanayay marka wuxuu yiri ku dhiirada afkeeni dhinto dhab ugu haasaawa ku dhaqaaqa dhoodaan sidii oo dhab ugu hiisha ka dhabeeya dhambaalada ku qoran afkeeni sax iskoolada ku wanaagsan kuma dhaqmayaan sax kan dhigaas dhigar way kala dhowdaan saaray sax dhuuni bay ka raaceen afkii dhigitiisii waa macallimiintii iskooladii iyo manhajkii sax maxaa keena dhandhaamayo sax maxaa keena hoos lagu dhigi dhima afkeeni sax dhalinyariyo waayeel maxaa loogu dhukan waayey sax dhabooyinka in lagu qoro maxaa loogu dhici waayey ninka yirisi dheehaan dhiqiyo dheex waa hal ninka yirisi dheehaan dhiqiyo dhaawac soconaysa dheegana waraaba ka cunay dhuug iyo amxaro iga dhiirinkaasina markaan dhale ujeedkiisa waa nimanka ganacsatada oo boorarka markaad magaalada mara sodee wax ku qoran welcome wax ku qoran maxaa lahaay hebelo business waxaas ku qoran mogta supermarket iga dhiirinkaasina markaan dhale ujeedkiisa umad walba dhaqan gooniyo dhowrisaa jira dhammaanteesa waa dhihin maqaan kama dhabaysaane maxaa keena dhaandhaamayo kala dhantaalaya dhuuni raac maxaa naga dhigay dhidar sidiisii sudanka dhulkiina dace kan dhaqaaqaya dhooba ay udhidideen dad kale dhinaca saaraya oo dhiirina ku joogo weliba dhalasho doonaya qof intuu arag miya aragtay cabdicisi tegay dhulkiisa tegay dhul shisheeye tegay oo kule anu dhalashaan doonaya taydina waa inkirayaa
wiilku subxaan allah soo noqonay marka waa tahay waxaa jiray gabay aan kaa joojiyo oo ku saabsanaa calanka ku saabsanaa iyo marka kan aan ku dhameeyo wuxuu yiri marka nin waliba wuxuu soo dhigto dhab ugu aayaabay hadda dhowro wada mid dhab u haydeen ma cirkay ka soo dhicin dad yahow xumaha dhowraya inta ay dhibaataysiin dhalankii hooyo dhulkeena inuu dhacan yaho nacab dhowdayo inaan dhalgo waan dhex cunaa soo igama dheera waa su-aal tahay marka gabagas markaas halkaas ku ekaa dhalanteeda maasadaa dahaye waan ka hadlayay calanka saluug markii calankii u hoos tegay buu dee fariinay soo dhiibay mogta dhacday u hoos muqdisho qoray waa fariin waa calankii wuxuu ku soo dhiibay maaso uu ku leeyahay iga gaarsii mujtamac sidii gaarsii haye marka wuxuu yiri Soomaali weynay inta samaha jecelay marka hore salaan guud sangub iyo hadraawi iyo sooraan iyo jawaan iyo salmaan iyo caldoon iyo sangub iyo rawaa sugaanti waa waanadi salmaan iyo ninka la caldoon waa saxaafadii buu ka hadlayaa jilayaashina waa ka hadlayaa sangub iyo hadraawi iyo salmaan iyo caldoon iyo sooraan iyo jawaan iyo saaxiibkaynigayow sarreeya manus qaami anigoo sawdkiisa saxbayaan ku hadlaayo fariin ba kasidaysa aniga guddoomi wuxuu yiri saddex baan yar saluugi saddex baan yar saluugi saxaafadda waa yar saluugi buu yiri صح samaha kama talinayaan wanaag kuma saabsano suuqyada bambuuniyaan sarifkay wax moodayaan sibigii bay barakacsheen ummadii bay seedhiyeen horumarku way suquuqliyo se waxan ay gelinayaan waa saxaafadda waa dhalishaan haye ummadii bay suquuqliyo se waxan ay gelinayaan saaxiiba way dhehe buyidi fankana waa yar saluugi buu dhaqankii bay suuliyeen afkii bay silac badeen sugaanta dhuuxeedii iyo sarbeebteedii lusheen saxamay garaacayaan sunuud bay ku doonayaan suxun waxay u sheegayaan sax iyo khaladkii kala aqoon waa sugaantii iyo fanka maanta dhilintaasu sumaysa sida subaga iyo heenka wadaha dul sabaysa iyana waa yar saluuga bay dhalinyarada haye oo tahriibka iyo safar bay wada yihiin saxaray wada mareen South Africa solonaysa solay waxa la hilibka kala la dubo South Africa solonaysa Sacuudiga baa seelada mooday waxay u maleeyeen dad meel la ganacsado Sacuudigii baa seelada mooday صح safar bay wada yihiin qaxootay sib moodaya asaagooda saxaabadii sibrax ku horsada wili qeybkiisa hoosta waxay yurid walaalo qaxoonti baan xirey galiyay wilkooda saluugayaan iyana way saluug wuxuu wax badan ku sabrayay nafteeda aan sabaayay sabaale ku siixinayay wax badan baan islaahasu midnimo Soomaaliyeed imika sama sabrayo weey saacadna ma sugayo 35 gobol Soomaaliya marka hadda dhalinyarada la weydiiyo Soomaaliya ma gobol waxa laga yaabaa 18 gobol 18 gobol ma aha waa 35 gobol 18 gobol waxa labada gobol Hargeysa iyo Muqdisho baa in ka qaatay xorriyadda laakiin saddex baa sii maqan moogta wuxuu 35 gobol qabiil baa u soo dimaa sarreeya calanka lahayn shisheeye sidoo ka dhigay hal calan baan lahayn adduunka ku lahayn moogta waxay maanta maraya dhowr iyo 20 maraya Suudaan iyo Soomaaliya sarreeya calanka lahayn shisheeye sidoo ka dhigay sawdka dhaqanka lahayn iskoolada lagu dhigo kuwiina sixi lahaa sunnada nagu hagi lahaa Soomaali midayn lahaa wax ka rasay siyaasigii culimadii Soomaaliyeed khilaafa soo dhexgalay silsilad u qabiil watiyo sunbay la wareegayaan warmaan soo dhaamay sida sinaanti raadinno sumcadda soo celinno ismaqal aan samaysano Soomaali ahaan mid sibig waa daalin hooyada waa silcsan tahay wax badan soo samreen samaan bay doonayaan sinaan bay baaqayaan Soomaali mid ah Soomaali mid ay rabaan taasina waxay saluug walaalihi rasuul bulsho markaa ku maahay yaa kugu dhiirigeliyay markaad soo galaysa maasada iyo fanka waxa ku dhiirigeliyay niyow horta markii horeysay waan xareegay marka afkayga waxa ka soo baxay horeeyay waxay gobolka la haystay leeyahay RB waan kii soo dhalinyaro la socdo dhaheen kii roob ka daagtay oo di saabas ka shaqsiga talabada oo jooga waqooyiga waa raacay si maraya gobolka la haystay NFD waa niman boolis ah qabtay oo Kenyaati ah oo rondo ku qabtay yani waxaan aaminsan dhulkayga wali jooga moogta nimanku waa safraan ciidan qaatan ciidan ku tagay ana leh sidii wuxuu dhahay gumeystaan jibtiisa waa la dilay waa la xiray aan isdhaxnin oo kale markii uu raasay afka ku soo baxay maasal gobonimo la dhahay
marka la xidhay habeenkii 7 saac anoo kooma ka soo kacay xabsiga ku jira soo kacay nimankii marka saaxiibada ay qabsadeen ka baqatay ciida ku geeyo qaad ciida madaale meesha joogsan aan gaaraysan oo aan nafti ahay waa iyadii ma ala iskale nimanka waxay aan ku doodnay meesha maleeyay waan leeyahay waan aragay marka waan arxalay ma soo gobonimo doon marka mid xabsi ku jira oo naga horeeyay wixii maxaa doonaysan oo meesha soo bootay ma ogni joogtaan wixii marka waxaan goobayaa ugu culeynaya gooriya ayaan gobonimo shaqsiga wala geed wala arsada waxaan goobayaa ugu culeynaya oo gobonimo aan soo gudbiyay gaawaha culeyn gaagaxni waxaan goobayaa ugu culeynaya oo gobonimo geesaha kamera gacmo jir wax u goyn kara waxaan goobayaa ugu culeynaya gaajiya raad guuraha habeenka badana umri oo gobonimo guulo u sii waxaan goobayaa ugu culeynaya good iyo abees gabaheed ila sunta igu galay oo gobonimo guulo u sii gacali xigtay aniga wax kala ma la garno weey aniga kartara ninka gataa kayga Soomaaliyeed gurmadka soo kacaba gayaanka kuwii ahaa waxa loo kala gataa kuwii gobonimo reeb waxa loo gowracaa maxaan galabsano qabiil noo gumaadaya xagaadka hawsha gabay aqoonyahanka kugu shadhigin kasiin bay wada rabaan sax bidimeyna wata gobolka banaadir ma hawlka baa banaadir ma hawlka baa gaarisa ma gadan cidla jiga gobonimo ma diiday hargeysa maxaa gadooshay Djibouti ay go'ay garowi gobolka soo galmudug la gobolka cayni kayga Soomaaliyeed gabra go'aamiya gafara gudiga go'ay miska waxa hagartii buurtigo taagoo loo dhigtaa go'aan ka qaadataan shantii gobol barada taasi ay markaa waxay u leeyihiin markii horeysay waa taa waqti aan u saamaxayn inaan intaas ka sii badino aadan kugu mahad celinayaa wuxuu ahaa kaasi abwaan cabdishakuur cali axmed oo abwaan sheego ku magac dheer isla markaana qayb ka mid ah sooyaalkiisa fanka aynu waraysi kala yeelanay iguna soo booqday stuudiyaha telefishinka Somali Cable oo maasantahay waan kaaga mahad celinaa sida barnaamijka aad iga qayb qaadatay guud ahaan waraysiga inta ayaan kusoo gabagabeynaa waxaan leeyahay sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh